Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Sabna Kista Official. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka soo booqato subscribe noo saar. Gambalelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan kana kusoo gudbino. Fadlan haddii aad hore noo joogtay muuqaalka like noo saar sidoo kalena sii share garay si uu muuqaal kuu gaaro saaxiib badan. Waana ku mahadsantahay la joogay mar walba si aad nala socoto. Asxaabta maanta waxaan soo qaadanaynaa filmo xiiso badan markaa ka soo baxay dhankaas iyo filmada markaas ka soo baxay dhankaas iyo Hindiya. gaar ahaan shabakada Bollywood ay marka hore ku horeynayna filmo xiiso badan ku dhawaaqday. sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa filmka Shahid Kapoor hogaamiye ka yahay ee lagu magacaabo Farsi kaasoo soo bixi doona dhamaadka sanadka 2020. Filmkaas si toos ah waxaa loo saari doonaa OTT-ga shirkadda Amazon Prime ayaa filmkaas sameynaysa. sidoo kale filmkan waxaa ka soo muuqan doona xidig sida weyn loo baadgoobay ninka lagu magacaabo Vijay Sethupathi oo noqday xidig markaas saameyn badan ku leh dhankaas Koonfur Hindiya. sidoo kale Bollywood-ka aadna loo xiiso qabo filmo badan oo ka soo muuqdo. hadda xidigan wuxuu noqday xidig weyn oo markaas aad looga jecel yahay marka dhankaas Koonfur Hindiya filmo badan ka soo muuqda. sidoo kale tan iyo markuu sameeyay filmkii Vikram marka actor-kan waxa soo gaaray dalabaad aad u fara badan. haddana xidiga lagu magacaabo Shah Rukh Khan ayaa la soo wadaa filmkiisa Jawan oo marka la ku matalayo. haddana heshiiska waxa saxday filmka lagu magacaabo Farsi kaasoo ku matalaya laada awood badan waxaana isqaban doonaa xidiga lagu magacaabo Shahid Kapoor. filmka Shahid Kapoor ayaa tarshakawaad atoraka halka garab lagu magacaabo Kritisan filmka tarshakawaad ku matalayso halka filmka director ka yihiin ragga lagu kala magacaabo Rajni Dumaru iyo ninka lagu magacaabo Krishna DK ayaa filmkan laba director ayaa filmkaas ku imaaday si markaa uu noqdo filmkan film heer sare ah oo markaa daawadayaasha laga gadi karo. sidoo filmka theater lama saari doono waxaa gagatay shirkadda lagu magacaabo Amazon Prime ayaa filmkaas si toos ah looga daawan doonaa. waana film xiiso badan oo markaa ku xifaaltami doonaan Vijay Sethupathi iyo ninka lagu magacaabo Shahid Kapoor ee filmka ku xisaabi doono. halka Shahid Kapoor filmkiisa ugu dambeeyay waa filmkii Jarsay oo markaa laga soo miguuriyay mashruucii Nine hogaamiye ka la daawaday sanadii 2019. xidigan filmkaas oo ka fashilmay. sidoo kale xidigan shaashada wuxuu ka maqnaa tan iyo filmkiisa Kabir Singh oo markaa 2019 sameeyay kaasoo noqday blockbuster weyn. xidigan hore u filmaan remake ayuu sameeyay balse hadda filmkan waa film original markaa sheekadiisana original tahay. sidoo kale filmkan ay hogaamiyaasha ka yihiin Shahid Kapoor iyo Kritisan. sidoo kale filmkan waa film isku jira thriller iyo khiyaano waana film marka xiiso badan Shahid Kapoor shaashada ku soo laaban doono tan iyo filmkii Jarsay kaasoo ka burburay halka director ka yihiin Raj DK. filmkan waa film xiiso badan. sidoo kale isla DK ayaa filmkan producer-ka sidoo kale producer fara badan ayaa la isku keenay ay ka mid yihiin laba director oo filmkan iska leh halka shirkadda Amazon filmkan ay gadatay. sidoo kale gabar lagu magacaabo Rajina Cassandra markaas lagu filmka ka soo muuqan doonto waa sida shabakada qaar markay taabacayaan si markaas filmka uu mar noqdo film markaa badan. waxay filmka ku matali doontaa sida shaac laga qaaday Vijay Sethupathi lamaantiisa waana film xiiso badan soo bixi doona dabiiqada sanadka 2020. sidoo kale filmkan wuxuu u baahan tahay in markaa laga dhigi doono horaanta sanadka 2023 maadaama filmka wali shaqadiisa socoto. asxaabta filmkaasi taas ayaa ku cusub. xiga waxaa soo qaadanaynaa filmka lagu magacaabo Shahzada oo hogaamiye ka yahay xidiga loo jecel yahay Kartik Aaryan halka filmkan tarshakawaad ka tahay xidigta lagu magacaabo Kritisan oo bariyaha noqotay xidigid markaa fanka India aad looga jecel yahay. sidoo kale filmo badan xiiso badan soo wado ugu horeeyay filmkii markaa filmka hadda ku soo qaadana barnaamijkii hore Farsi ee Shahid Kapoor shaashada loo wada doonto. haddana waxaa ku xiga filmka Shahzada oo markaa la soo wado Kartik Aaryan. sidoo kale December waxaa soo bixi doona filmkii Kanabaad la wado Tiger Shroff. sidoo kale January waxaa u xigi doona filmka Adi Purush la soo wado Barbahas. xidigtan waxay noqotay xidig markaa ay noqon Pan India Star ee markaa waxay dolac doontaa superstarada weyn maadaama fanka India ugu weyn markaa la soo wado filmaha xiiso badan. fanka India markaa waxa ugu weyn shirkadda lagu magacaabo Bollywood waxaana ku soo xidhay fanka loo yaqaan Tollywood waa labada shirkadood ugu weyn marka la joogo fanka Hindiya. xidigtan waa ka soo muuqan doontaa sanadka 2020 iyo sanadka 2023 waxay noqotay Pan India Star maadaama filmadeeda ugu xiiso badan laga daawan doono labada shirkadood ugu waaweyn marka la joogo fanka Hindiya. sidoo kale xidigtan filmo badan oo xiiso badan ayaa ku dhawaaqi doontaa marka laga daawan doono dhankaas Hindiya. haddana waxaa ugu waaweyn filmka lagu magacaabo Shahzada ee markaa kala soo muuqan doonto ninka lagu magacaabo Kartik Aaryan oo markaa noqday xidig saameyn badan ku leh fanka Bollywood-ka tan iyo markuu sameeyay filmkii Bulbulaya 2 oo la daawaday bishii May 2020 kaasoo noqday blockbuster weyn. xidigan shacbiyad ballaaran oo ku helay marka la joogo dhankaas filmada Bollywood-ka laga soo saaro. haddana waxaa ku dhawaaqay filmkiisa xiga lagu magacaabo Shahzada oo markaa laga soo minguuriyay mashruucii lagu wahaa ee markaa sameeyay Allu Arjun
kaasoo la daawan sanadii 2020 kaasoo lagu magacaabo Life Kubultalu kaasoo xidigaas marka Allu Arjun kaasoo noqday all time blockbuster. haddana filimkan waxaa soo yeeshay Bollywoodka waxaa loo dhiibay ninka lagu magacaabo Kartik Aaryan halka filimkan uu director ka noqon doono Rohit Dhawan oo marka uu ah ninka lagu magacaabo Varun Dhawan halka filimkan maalgelinayo producer-ka marka caanka Allu Arvind oo aabo ah ninka lagu magacaabo Allu Arjun ayaa filimkan dhankaasi Hindi la aaday maadaama filimkan uu producer ka yahay halka Bhushan Kumar marka madaxda shirkadda TCR filimkan maalgelinayso shirkadda TCR filimkan wuxuu ku qabtaa kalsoonida badan maadaama filimkii Bulbul ayaa tuu marka guul weyn ka gaaray dhankaasi tiyaatarada haddana xidigan wuxuu dhibatay isla filimkan lagu magacaabo Shehzada sidoo kale filimkan waxaa lagu dhawaaqay xilliga rasmiga la daawan doono waa February 10 2023 ayaa filimka shaaca laga qaaday in la daawan doono waxaa lagu daawan doonaa luqadda markaas Hindi lagu daawan doonaa halka shirkadaha kale Gita Artists iyo shirkadda lagu magacaabo T-Series ayaa filimkan maalgelin doonta sidoo kale Fashactirola caanka filimkan Balash Rawalje Soomaalidu taqaan naamanaha ayaa filimkan door muhiim ah ka qaadan doona sidoo kale waxaa shaaca laga qaaday filimkii Allu Arjun filimkii doorku qaatay ninka lagu magacaabo Murali Sharma ayuu xidigan Balash Rawal qaadan doona waana filim xiiso badan markaas soo bixi doona sanadka 2023 asxaabta filimka Shehzada intaas ayaa ku cusub wixii ka soo korana waa la socodsiin doonaa wixii macluumaad marka ku saabsan trailerkiisa iyo teaserkiisa xilliga rasmiga la soo bandhigi doono halkan kala socda kala filimka xiisaha badan marka ka soo qaadanayna dhankaasi fanka Bollywoodka waxaa ugu xiiso badan filimka lagu magacaabo Rocky Awarani ki Ibrahim Kahani ee hogaamiyalka Ranveer Singh iyo Alia Bhatt halka dheeramadara filimkan door muhiim ah ku leeyahay sidoo kale Jaya Bachchan oo marka xaaska marka u dhaxda ninka lagu magacaabo Amitabh Bachchan ayaa filimkan door muhiim ah ka qaadan doona rugcadayaashiisa gaashamaadka ayaa filimkan haday noqon lahayd dheeramadara iyo Jaya Bachchan ayaa filimkan qurxin doona halka Ranveer Singh iyo Alia Bhatt markii ugu horeysay tahay superstar-ka oo wada badan dhankaasi gaashamaadkii ee fanka Bollywoodka markaas filimka kala soo muuqan doonaan Ranveer Singh marka shaaca ka qaaday inay farxad u tahay maadaama filimkan kala soo muuqan doonaan superstar marka superstar-ka kala Jaya Bachchan dheeramadara filimka kala soo muuqan doona halka gabadha lagu magacaabo Preity Zinta markaas superstar-da ugu awoodda badan halka fanka Hindiya soo maray ee marka ka soo muuqan doonta filimkan waa filim xiiso badan marka la isku keenay Ranveer Singh iyo Alia Bhatt oo marka shaashada dib ugu midoobi doona hore labada xidig filim badan aad ay ugu sameeyeen haddana shaashada marka dib ay ugu midoobi doonaan sidoo kale filimkan waxaa maalgelinaya shirkadda lagu magacaabo Dharma Production oo madax u yahay ninka lagu magacaabo Karan Johar sidoo kale isla filimkan waxa director-ka Karan Johar ayaa filimka isla director-ka waana filim xiiso badan oo marka director ku noqon doona ninka lagu magacaabo Karan Johar sidoo kale filimkan waxaa sidoo kale la maalgelinaya ninka gabadha lagu magacaabo Hira Johar oo marka la dhalatay Karan Johar halka distributor ama shirkaddan cajalada qiimadooda shirkadda lagu magacaabo Falcom 18 Studios sidoo kale filimkan xiiso badan waxaa lagu dhawaaqay marka in la daawan doono sanadka 2023 balse shaaca lagama qaadan xilliga rasmiga marka bisha rasmiga filimkan la daawan doono waxaana u badan tahay 3-4 bilood ugu horeysa filimka in tiyaatarada la saari doono waana filim xiiso badan marka iskugu jira fariinta shactirada iyo fariinta marka romansiga ama comedy filimka iskugu jirta halka Karan Johar uu filimka producer ka yahay isla director filimka ka yahay halka superstar inta marka dharmadara iyo Jaya Bachchan filimka door muuqaal marti ama door kooban marka filimkan ku leeyihiin halka Alia Bhatt marka Ranveer Singh filimkan door dhameystir ama hogaamiyada filimka qaadan doonaan sidoo kale filimka waxa shaaca laga qaaday in marka dib u dhac ku imaan doono maadaama dhankaas gabadha lagu magacaabo Alia Bhatt marka xaaladda hooyanimo marka ay gali doonto maadaama xidigtan marka uur leedahay ninka lagu magacaabo Ranbir Kapoor sidoo kale filimka dib u dhac weyn ayaa ku imaan doona maadaama 3 bilood ee foodan ugu saayay marka filimkan dib loo dhigi doono maadaama xidigtan ay markaas uur leedahay sidoo kale filimkan dhowr jeer kala duwan ayuu baaqday sidoo kale filimkan qaybo muhiim ayaa laga duubay balse filimkan wax yar ayaa u duuliman duubistiisa balse waxaa badan tahay bilahan lagu soo fooday filimkan duubistiisa la dhammaystiri doono sidoo kale goosgoosiis wax la soo bandhigi doona si rasmi ah marka bilaha January iyo February filimka la soo bandhigi doona balse filimka qorshe waxa weyn isku dhacaan filimka lagu magacaabo Shehzada ee marka la daawan doono February 10 balse ninka lagu magacaabo Karan Johar dib ayuu filimkan u dhigay maadaama filimka shaqadiisa ay in badan filimka ka harsan tahay dib ayuu dhigay filimkan wuxuu ka dhigi doonaa bilaha marka 5 bilood filimkan ugu soo horeysa sanadka 2023 bilood ugu soo sar filimkan marka la daawan doono waa sidoo shaaca ka qaaday shirkadda Karan Johar shirkadiisa lagu magacaabo Dharma Production oo marka waqtigeeda fiican u jira maadaama filimkii Brahmastra marka filimkan uu ka talaabay ku dhawaad 350 karar filimkaas uu ka talaabay sidoo kale filimkan wuxuu noqday filim hit oo marka macaash fara badan ka helay shirkadda lagu magacaabo Dharma Production sidoo kale shirkaddan filmada ugu dambeeyay waxay ahayd filmo falooba habka hore filimka Bachchan Bande oo sheeko hogaamiye ka yahay sidoo kale joog filimkaas wuxuu noqday film average oo filimkaas oo film guuleystay haddana Brahmastra ayaa la imaaday film hit
inkastoo filimkaas uu yahay filim markaa xumaan badan laga faafiyey sheekadiisana aad u liidato. asxaabta filimka lagu magacaabo Rocky Our Birmingham intaas ayaa ka cusub waxay ka soo kordhana halkan ay kala socda. fadlan haddii aad muuqaalka ka hesheen like noo saara waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.